السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta maanta waxaynu ka hadli doonaa qodob ka mid ah casharkeennii inoo soo socday amaba koorsadeennii inoo soo socotay ee network fundamental. maanta waxaynu sidoo kale aynu ka hadli doonaa transition media waxa la dhaho, taasoo aynu casharkan dhammaantiis aynu ku falanqeyn doono. ugu horeyn haddaynu isdul taagno transition media waa habka amaba waa pathway-ga kaas oo network thinkiisku ama ashyaada networku ay isticmaalaan si uu midba midka kale ugu xidhmo. transition mediahu waa dariiqa ay isticmaalayaan network thinkiisku ama ashyaada networku si uu midba midka kale ugu xidhmo. waxaana ka mid ah waxyaalaha ay transition media ay u adeegsanayaan cableska iyo wirelesska, oo labada hab ayay adeegsanayaan si ay iskugu xidhmaan amaba midba midka kale ugu xidhmo. haddaba transition media markaynu joogno waxaynu u qaybiyeynaa laba qaybood, kuwaasoo kala ah guided iyo unguided. guidedku waxaynu uga jeednaa waa wixii wire ah amaba cable ah ee networkeenu adeegsanayo ayaynu uga jeednaa. sidoo kale unguided waxaynu uga jeednaa wixii wireless ah ee bilaa cable lagu adeegsanayo networkeena ayaynu dhahaynaa waa unguided. marka wirelesska casharaan inoo soo socda ayaynu si toosa isu dul istaagi doonaa. maanta waxaynu ka hadli doonaa wireka amaba qaybihiisa kala duwan ayaynu ka hadli doonaa. sidoo kale markaad wire aad samaysanaysid amaba cable aad networkaaga u samaysanaysid ayaynu waxaynu ka hadli doonaa siyaabaha aad u samaysanaysid iyo dariiqa aad adeegsanaysid. bal haddaba aynu si yar dul taagno cableska kala duwan ee networkeenu yeelan doono. waxa uu yidhi guided transition media network cablesku adyusr waxay isticmaalaan amaba network cableska waxaa loo isticmaalaa si loogu xidho network in lagu xidho network kale, taas oo ay ka mid tahay sida in computer lagu xidho printerka oo kale. tusaale ahaan networkeenu waxa uu ka kooban yahay computers, sidaa daraaddeed waxaynu rabnaa inaynu printer amaba another device kale aynu ku xidhno, waxaynu u adeegsanaynaa network cableskan kala duwan. marka different types of network cables ayaa jira, qaybo kala duwan oo network cabledeenu noqon doonaan ayaa jira. ka waxaa ugu horeeya fiber optic oo ah xadhigga halkaas inaga muuqda. sidoo kale coaxial cable oo aynu isagana isla arki doono, waxaana kusii xidhay twisted pair cable, isaguna xadhkahaas halkaa inaga muuqda. ka saddexdaas qaybood ayaa xadhkaha amaba cableska network uu yeelanayo oo loo qaybiyaa. haddaynu u nimaano coaxial cable amaba sida loo yaqaano coaxic, waa qayb ka mid a electrical cable-ka ka mid a, waxaana ku jira consisting amaba uu ka kooban yahay of inner conductor. waxaa la dhahaa miiqa yar ee kasoo jeeda coaxial cable-ka, kaas oo ku wareejisan yahay concentric conducting shell, waxaana ku wareejisan dahaar yar oo kale oo isaguna sida dahabiga kale u eg, kaas oo la dhaho concentric conducting shell la dhaho. sidoo kale with two separate bay dielectric ayaa qaybiya. labadoodan waxaa sii qaybiya dielectric oo ah buushka yar ee ku dhex jira xadhigga, kaas ayaa sii qaybiya. sidoo kale dahaadho kale fara badan ayuu ka kooban yahay. waxaa kusii xiga dahaadhkan kale ee sida aluminiumta oo kale u eg iyo qeybtan kale ee weyn. kabacdi waxaa ku wada dahaadhan caaggaas sare ayaa ku wada dahaadhan. marka xadhiggaasi qaybahaas kala duwan ayuu ka kooban yahay, waxaana la dhahaa coaxial cable. coaxial cable-ka haddaynu fahamka soo yar koobno waa xadhigga aynu u adeegsano tviyada sida receiverska
oo labadiisan dhinacan waxaa laga soo gelinayaa qaybta receiverka ee TV-gaaga ayaad ka gelinaysaa, dhinacan kalena waxaad ka gelinaysaa qaybta kale ee diishka. markaa waxba kusii dheeraamayno coaxial cable-ka waa xarig iska wada caana, kaas oo guri kasta laga soo helayo oo badanka aynu adeegsano. waxaynu tegaynaa fiber optic cable. fiberku waa maxay? xarigan fiberka la dhaho waxa uu isticmaalaa long distances kala duwan ama masaafooyin aad u kala fog ayuu isticmaalaa. tusaale ahaan xarigan waxaa laga soo rari karaa wadan, sidoo kale waxaa loo gudbin karaa wadan kale. waa xariga ugu adag, sidoo kale uguna high performance-ga ama xagga dhaatada ee uu sido high performance ayay ku socotaa. sidoo kale it is also sidoo kale commonly used waxaa loo isticmaalaa badanka ama waxyaalaha ugu caansan loo isticmaalo waa xagga telecommunication-ka ama isgaarsiinta ayaa loo isticmaalaa. isgaarsiintaas waxaa ka mid ah sida internet-ka oo kale, oo xarigan waxa uu toos ugu caan yahay, ama fiber optic-gu waxa uu caan ugu yahay sida internet-ka oo ay badanka dadku ay ku barteen. sidoo kale telefishinska ayaa ka mid ah telefoonada ama isgaarsiinta kala duwan ayaa xarigan adeegsata. markaa kaasna waxaa la dhahayaa haddaynu intaas fahamkiisa kusoo koobno waa coaxial, waxaa la dhahaa fiber optic cable ayaa la dhahaa. waxaynu halkan ku geli doonaa qaybta la dhaho twisted pair ama twisted pair cable oo ah qaybteeni saddexaad, taas oo aynu qaybaha dambe aynu isaguun kaga hadli doono. waa xariga network-ga intiisa u badan ba la adeegsado, kaas oo jaban, network kastana aad ku arkaysid. markaa isaga muhiimadda ayaynu siinaynaa. xarigan waxa uu ku yiri waa the most common types, waa qaybta ugu caansan, taas oo LAN cableska ama LAN network-ga LAN-ka ah loo adeegsado. sidoo kale xarigan ama twisted pair-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo aynu arki doono, kuwaas oo ah UTP iyo STP cables. markaa UTP-gu waa xariga halkan kaaga muuqda, STP-guna waa kan kale ee halkan kaaga muuqda. twisted pair cables waxay ka kooban yihiin 8 cable ama 8 xarig ayay ka kooban yihiin. waxaad halkan uga jeedaa miiq, intaas oo miiq oo 8 ah amaba 8 xarig oo yar oo kasii kooban yahay ayaad uga jeedaa. sidoo kale wired together to make 4 parts, waxay iskugu maran yihiin laba ayay iskugu maran yihiin si ay u sameeyaan 4 xarig ay u sameeyaan. markaa xarkahani micno ayay u taagan yihiin amaba waxay u taagan yihiin ujeedo. xarig kasta waxa uu qabtaa hawl gaara ayuu qabtaa. waynu arki doonaa. tusaale ahaan xarkaha qaar waxay sameynayaan amaba ay gudbinayaan transition daatada ayay gudbinayaan, qaarna ay soo qabanayaan ama ay helayaan daatadii oo receive data ayaynu ku magacaabaynaa. sidoo kale xarkaha qaar waxay gudbinayaan powerka ama dabka ayay gudbinayaan. markaa twisted pair-kana waxaynu qaybinay UTP iyo STP. UTP haddaynu u tagno waxaa loo soo gaabiyey unshielded twisted pair, waa xarigii aan dahaadhnayn. micno ahaan waa xarigii aan dahaadhnayn oo waa ka halkan kaaga muuqda. waxa uu ka kooban yahay ku yiri maximum length-ka amaba length-ka ugu dheer ee la gaarsiin karo waa 100 mitir. xagga feet-ka waa 328 feet ayuu adeegsadaa. waxaanu ka kooban yahay 2 iyo wixii ka badan oo twisted wire pairs ah. 2 ayuu iskugu maran yahay. sidoo kale STP-gu waa shielded twisted pair weeyaan. it's same UTP, waxay
same ay xagga qaabka ay isku mid yihiin UTB-ga oo xadhigan kale ay isku mid yihiin, but laakiin copper waxaa ku dahaaran with shielded resistance. isagoo wuxuu kaga duwan yahay oo keliyata oo ku dahaaran shielded resistance amaba aluminum taayaro khafiifta ayaa ku dahaaran, taas oo resistance-ga ka celinaysa. It's more reliable, waana ka loogu kalsoon yahay, and faster, uguna xagga daatada uguna dheereeya oo UTB-ga ayuu ka duwan yahay. sidoo kale waxa uu adeegsadaa ama STB-gu waa uu ka masaafo dheer yahay, oo tusaale ahaan waxaynu soo aragnay UTB-gu inuu 100 mitir ama 328 feet uu adeegsanayay, kaniintaas waa uu ka badan yahay. sidoo kale marka xadhkahan la joogo mid kastaba waxa uu sii yeelanayaa laba qaybood, labadaas qaybood oo kale ah cat 5 iyo cat 6. tusaale ahaan xadhigani waxa weeyaan waa UTB, waxa uu yeelanayaa cat 5 iyo cat 6. cat 5ku macna ahaan wax kale maaha, cat 5ku waxa weeyaan waa xadhkaha network gudihiisa loo adeegsanayo. tusaale ahaan network-geenu waxa uu ka jiraa shirkadda gudaheeda ayuu ka jiraa, waxaynu adeegsanaynaa xadhigan la dhaho cat 5. sidoo kale cat 5ku waxa uu sii yeelanayaa cat 5e iyo cat 5 keliyaad. markaas xadhkahaas ayaa sii kala qaybsamaya. sidoo kale cat 6kana waa network-geena waxa dibadda uga baxsan. tusaale ahaan shirkadda dibaddeeda marka aynu rabno inaynu kasoo talaalano internet, cat 5 adeegsan mayno ee waxaynu adeegsanaynaa cat 6, oo cat 6ku waa uu ka adkeysan badan yahay cat 5ka. xagga qoraxdo kale waa uu adkeystaa. marka ateenooyinka gudahooda ama outdoor dibaddooda waxaa loo adeegsadaa cat 6, xagga dibaddana amaba xagga gudahana waxaa loo adeegsadaa cat 5. sidaas ayay ku kala duwan yihiin xadhkahaasna. haddaba waxaynu xidhi doonaa amaba aynu isla eegi doonaa siyaabaha xadhkahan loo sameeyo ee loo xidho. horta intayna isla gudagelin waxaynu isla eegaynaa xadhkahani micno gooniya ayay u taagan yihiin. tusaale ahaan halkan waxaa kaaga muuqda oo aynu yidhi xadhigii waxau ka koobnaa 4 qaybood, kaas oo laba ah, waana sida halkan kaaga muuqata waa 8 qaybood weeyaan. 8daas qaybood waa kala kararaan weeyaan, mid kastaba kalar gaar ayuu leeyahay. marka xadhigani isagu waxa uu gudbinayaa xog gaar ayuu gudbinayaa, kana xog gaar ayuu gudbinayaa. marka waxaynu kala qaybin doonaa sida ay u kala gudbinayaan. tusaale ahaan xadhigaas koobaad oo 1ka ah oo ah weight of orange amaba orange iyo cadaan isku jira, iyo sidoo kale ka ku xiga oo ah orange-ga, iyo sidoo kale kaas saddexaad oo ku sii xiga oo ah weight of green. saddexdaas xadhig oo loo geeyay xadhigaas lixaad oo green-ka ah, iyagu waxay gudbinayaan daatada amaba daatada ayay qaadayaan. sidoo kale xadhigaas afaraad iyo kaa shanaad iyo weliba kaa 7 iyo kaa 8, 4taa xadhig ee kalena waxay gudbinayaan powerka. marka afarna waxay gudbinayaan dabka ama powerka ayay u gudbinayaan network-ga, afarna waxay gudbinayaan daatada iyo xogta ayay gudbinayaan. sidoo kale kuwan daatada gudbinaya ayaa sii kala qaybsamaya, oo 1ka iyo 2gu iyagu daatada waa transmission ayay ku sameynayaan amaba iyagu way gudbinayaan, laakiin 3ga iyo 6ku received ama daatadii ayay helayaan, oo received data ayaa lagu magacaabay. marka xadhkaha xogtooduna waa noocaas weeyaan, qaabkaas ama ujeedadaas gaarka ah ayay u shaqeynayaan. marka waxaynu rabnaa dhowr hab oo loo xidho xadhkahan kala duwan inaynu isla aragno network dhexdiisa inaynu isla aragno. marka
si aanu cashirkeenu u dheeraan waxaan jeclaan lahaa inaynu cashir ku xiga aynu ku aragno siyaabaha loo xidho amaba implementationka loogu sameeyo cables kala duwan ee network. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.